بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم إذا ما سنتين غير بيدو دمانتين حقوقيب قالي محاضرة إذا كما سنتين شيخنا مايل رايس الشيخ محمد إبراهيم كنياوي يجيك مايل رايس مرتنين مقالة بيدو مرتنين كأه شيخي مقالة يساك برباري مقالة يساك دالري مقالة يساك كوري مقالة يسوالك بردي الروغ ما يبقى فضانا إن شاء الله dadka may buwaar bayda ahlu khayr ahaayeen wili shooba ahlu iimaan ahaayeen ahlu quraan ahaayeen haddana geeka may bafadana insha Allah antiyo muhaadarada ku faa'iideysadaan hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala karaal nagada marka insha Allah sheekh yaasiin ka wareejiye marka may kale fadana dadka surugantiyo fadheedan raalaada al fadheedoy dadka fadheedan raalaada dada ku qariyaytan fadheeda hal fadheedoy sheekhna siin ku asada intiisin fadheetan meelana maxaadari lagu jeediyahay maahin banoonun may ka dheelahay sangna may kahay marka hal fadheedo insha Allah marka may baa ka dhawaaye microphone-ka sheekh dadkan ku faa'iideysadaan maxaadaradii ka dhawaaye sheekh may basin ku codsadahay magaalada xamar markii la ka qoboday maxaadarada la ka qoboday may baleeya sifayle ka dhamaati sanadam le ka dhamaati sa akhlaaq le ka dhamaati si احترام لك دماتي غير بيدو ميبا قوصده يليا انتي لس احترام انتي سي اخلاق محاضرة نينك دمات سي آذاب لانتي نينك دمات يكو عصده لي شيخ تاسا كان نقاي هل فديدو ان شاء الله رال هذا هل استحقليوي ولو نهاينا مشيغاي ان محاضروا كلام الله كلام رسول صلى الله عليه وسلم يلا شيغاي اذا انا ما سنتين ان شاء الله شيخ سنك دواي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هر بيدو جناي هلنكي اوكين ولكن غير بيدو ولكن جيكي مريدي جيك ولي فضي marka hore intaana dawkan bilaabana wali faday ini ana siinka salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh geeka wali faday ini ana dad badan oo inta rooga xusuusiya baydhawo jannaay ii dad shay wali haada jareen
dad badan aan gorodaan dad badan oo geedhow dhaladii aan gorodaana baydhawo wali yeeta dad shay wali ayiin wali haada jareen xataa magaga baydhabo jannaay se haada jari geekini xusuusiyey fadee runtii walaalkiin maxamed sheekh ibraahim kenyaawi sin salaame wali sinka salaame salaan haka gotii qalbiga oo dhab suurado faylan oo ana ka aragi intii ana baydhabo roogi wala ana hal maamawme sida ixtiraamka leh edebta leh lahangali liin fadheedaw liis ixtiraamaw qofba walaalshay kan ag fadhiya ixtiraamaw runtii wal ana hal maamawme ilaahay siin barakeey madun wali ilaahay ku rajeeyana ilaahay ka baryaana inii berisamaadkii baydhabaha kanaga baydhabo sidii haada jartii iisi ku faylan ini ilaahay kuweela dad wali na dhegaysadaw laifalka jara baydhabo shiladiya mayni dhegaysadahay soomaaliya oo dhan dal ii dibad ya dadka wali hor fadhiyaan tviyada dhegaysadahayaan wali fadaana baydhabo inii unu ku gudbin suura faylan ini dadka ogaadaan baydhabo see haada jartii dad shay see haada jareen dad ahlu karam dad ahlu khayr dad isjeel sinjeela wallaahi sinjeela qalbiga sinkajeela sin du'aaye mar walba waxaan anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta wasiir ku-xigeenkii ayaa ila socda wasiirka waxbarashada iyo hiddaha tacliinta sare ayaa jooga madax ayaa joogta halkan anoo ku hadlaya magaca culimaa udiinka soomaaliyeed culimada magaalada baydhabo culimadii aan wax ka soo barti dugsiga hoose dhexe busley inta ka yaala busley hoose meelaha ka dhikade acel busley biyooshay dhami dugsi dhexe intaha ka dhikade dugsi sare 11 janaayo iyo axmed warsame gurmadka qaranka wali ha ka gali manaas reer manaas ahaada jari anoo ku hadlayo magaca culimaa udiinka soomaaliyeed gaar ahaan culimaa udiinka reer baydhabo gorodaasan ideelshin wali gorodaasan baydhabo cilmiga lahan doonada jari wali luku kooyi jari etoobiya jabuuti kenya yalu ku kooyi jari inta qur-aanka laka xifdii jari inta kitaabada ilaahay minhajka laka barada jari dadka baydhabo wali ka nagada jareen iyagoo culimo caalimiin cilmi xambaarsan yaa inta ka nagada jareen magaalada baydhabo magaalo dacwayahayti laakiin waxaan idin xusuusinayaa haddii sababta ay u dhacday in magacii jannaay ay bedelanto oo maanta xaaladda aan ku sugannahay ay noqoto ayaan rabaa inaan idin xusuusiyo inta halkan fadhida maanta haddii taariikhdaas ay maqlaan ballanna aan kala qaadana waxaan hubaa 6 bilood gudahood haddii waxa aan sheegi doona aan qaadana in 6 bilood gudahood baydhabo ay ku soo noqonaysa baydhabo jannaay ma rabno waxaan aad iyo aad u salaamayaa culimaa udiinka reer baydhabo imaamyada masaajidada dadka ducaadda ah ee magaaladan haya ayaan aad iyo aad u salaamayaa walaalayaal waxaan rabaa marka ugu horeysa ilaa iyo 4 qodob keliyaan rabaa maanta inaan ka hadlo waa qodobka ugu horeeya oo ah ummad waxay cizi iyo sharaf ku leedahay waa diinteeda wax kale shuqulkuma laha waana laynoo sheegayaa ilaahay baa rasuulkiisa ku dhahayaa waqul rabbi zidnii cilman
waxaad tidhaahdaa baa layidhi allow ii kordhi cilmi ii kordhi cilmiga cilmi adduunya ma aha cilmi aakhira ii kordhi dastuurkan ii kordhi inaan fahmo oo aan ku dhaqma ii kordhi isagaa haddana waxaa la dhahayaa cilmigan aad baranaysid kitaabka iyo sunnada samada laga keenay wa innahu ladikrun laka waliqawmik wasawfa tus'aluun qur'aankan sunnadan waxay kuu tahay sharaf ayay kuu tahay qur'aanka waa sharafkaagii ma adigunbaa moxamed sal alla alay wasalam mayee adiga dadka idinka dambeeya maanta ilaahayuu la hadlaayaa ilaahay moxamed maanta lama hadlaayo aayadda hadday isaga ku soo degatay ilaahay abaabakar cumar iyo cusmaan ridwaanullaahi calayhim lama hadlaayo hadday ku soo degatay maanta wuxuu ilaahay la hadlayaa reer baydha buu la hadlaayaa maanta oo uu leeyahay wa innahu ladikrun laka waliqawmik wasawfa tus'aluun qur'aanka reer baydhabow diintan in la barto lagu dhaqmo la falgeliyo la fidiyo waa sharafkiina waa waxa aad ku noolaanaysaan ilaahay idinku siinaya hanuun caafimaad barwaaqo caysh wanaagsan amni iyo ammaan wuxuu idinku siinayo magaciinii kor u qaadaya waa inaad diintiinii u soo laabataan aad ku soo celisaan magaalada baydhaba iyo gobolka oo dhan awal gobolka baay ayaa la dhihi jiraye diintii iyo magacii ay lahayd dacwadii ay lahayd diintii loo soo raadsan jiray in aad ku celisaan cumar ibn alkhataab ayaa hadlaya isagoo na guubaabinaya waxaabaad moodaaba maanta cumar inuu ina dhex joogo uu idinla hadlayo oo uu leeyahay wuxuu idinkaga sheekaynayaa diinta marka laga tago dhibaatada ay leedahay marka diinta lagu dhegana faa'iidada ay leedahay wuxuu leeyahay kunnaa adillaa faacazana allahu bilislaam faida ibtagayna alcizata bigayrihi adallana allah waxaanu ahayn ummad adille ah oo dulaysan islaamka ka hor jaar aanan aqoonin walaal aanan aqoonin rixim aanan aqoonin qabyaalad ku shaqaysta ibliis u shaqeeya dad isdila fuxshi iyo zino sameeya isdulma isdhaca xoolo ayaanu ahayn islaamka ka hor faacazana allahu bilislaam ilaahay baa haddaan quraysh nahayna jeclaaday haddaan uunka dadkii ku noolaa ee wanaagsanaa aan nahayna jeclaaday kadibna islaam buu noo keenay islaamkii buu cizi noogu yeelay in riximkii la xiriiriyo in qaraabadii la xiriiriyo walaalnimadii islaamka lagu walaaloobo hal qabiil la noqdo muslim la yidhaahda in riximkii la xiriiriyo in xaaraantii laga fogaado xalaashii in la cuno in ilaahay loo dhowaado in laysu turo kan yar kan weyn uu u turo kan weynna kan yar uu ixtiraamo in gacmaha laiswada qabsado qalbiga laisu xaaro faacazana allahu bilislaam islaamkii buu ilaahay nagu cizeeyey qur'aankii iyo sunnadu ilaahay nagu cizeeyey faida ibtagayna alcizata bigayrihi haddaan qur'aan iyo sunno diin ilaahay kayrkeed aan ka raadino cizi iyo sharaf reer galbeed iyo reer bari haddaan ka raadino maraykan iyo ruush haddaan ka raadino haddaan dhaqan gaale ka raadino haddaan cizi waxaan islaam ahayn ka raadino adallana allah ilaahay baa na dullaynaya cizigeenna waa xaggee islaamka cizigeenna waa xaggee cizigeenna waa xaggee cizigeennu waa xaggee islaamka allaha nagu nooleeyo islaamkana allaha nagu dilo islaamna allaha nagu soo saara walaalayaal tan labaad waxaad ogsoon tihiin ummadda waxa labaad ay ciziga ku leedahay waa dalkeeda hooyo weeyaan dalkeeda hooye cizi ku leedahay dalkeeda hooyay sharaf ku leedahay qaran u dhisan oo ay ku midaysan yihiin ayay cizi ku leeyihiin ayaa lagu ixtiraamayaa ayay ku hoos noolaan karaan ummad haddii qarankeedii burburo ummad haddii dalkeedii ay ka tagaan garan waayaan macaanka dhulkiisa waxaad ogaataan ummad khasaartay weeyaan taada kale eeg islaamka laynoo keenay ayaa wuxuu noo dhowrayaa noo ilaalinayaa qarankii iyo dalka ayuu noo ilaalinayaa u kaalay nabiyullaahi ibraahim abulanbiyaa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam waa ka uu dhahayo maka uu ducaynayo maka waa dalkiisii waa qarankiisii waa ka uu dhahayo waid qaala ibraahiimu rabbi ijcal haada albalada aaminan wajnubnii wabaniya an nacbuda alasnaam eeg ilaahay baan ku dhaariyee
amnigii iyo ammaankii ayaa wuxuu ka hormarinayaa cibaadadii. maxaa yeelay wuxuu ogsoon yahay inaan la cibaadaysan karin, ilaahay loo tukan karin, diin la baran karin, waxbarasho aanay jiraynin haddaanu amni iyo ammaan haddaanu jirin. soo maa wuxuu leeyahay waid qaala ibraahimu rabbi ijcal hada albalada aaminan, ilaahow beledkeenna dhulkeenna, dhulkaan aan ku dhalannay, dhulkaan aan ku barbaarnay, biyihiisii cabnay, cunadiisii cunnay, beerihiisii falannay, hawadiisii neefsannay, dhulkan aan dhisannay, dhulkan aan ku ciyaarayno, dhulkan ina deeqa, dhulkeenna hooyo magaca hooyaa loo bixiyey. ilaahow dhulka nooga yeel mid ammaan ah. waa nebi ilaahaye la soco, ululcasmi shanta rusul ee ugu qiimiga badan rususha ilaahay ah, weliba aabbahood ah, ayaa dhahaya aamin ilaahow nooga yeel. markaas kadib maxaa dhacaya? nabadda marka la helo maxaa dhacaya? wajnubnii wa baniya an nacbuda alasnaam, ilaahow naga fogee aniga iyo ubadkaygii duriyaddeeda inaan asnaam caabudno. wuxuu leeyahay amni markaan helnaan cibaadaysanaynaa. mar kale waa kanaa noloshii haddana isagoo ka hadlaya, waa duruus weeyaan. isagaa umma ayuu ahaa nabiyullaahi ibraahim. waa ka uu dhahayo وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. ايه إله بند كداريه إلهو مقال ذا دلكي هويو ومكة إلهو وحد كدك تامد آمن مد نبدا كدب مركا وارزق أهله من الثمرات. دلك واسعر إلهو إرزاق ذي سواسعي ومراها نقو إرزاق أيو ليهي. waxuu garanayaa idinka idaylkin reer baydhaba aad ogsoon tihiin in aan amni haddaanu jirin, nabadi haddaanay jirin, cibaado ma jirayso. sawkan masaajidadii laga cararaya maaha. masaajidadii yaa ku tukaday ii sheega, kulligiin guryaha ku wada tukataan. eeg wuxuu leeyahay ilaahow amni nooga yeel si aan u cibaadaysano, masaajidadii u camirno, shacaa'irteennii u camirno. ilaahow amni ka yeel, irsaaqdeeda noo waasici. wax ma cuni kartid, mana cabbi kartid, ma seexan kartid, wax ma baran kartid haddaanu amni jirin. taasuu noo cabirayaa. waa nebi ilaahay oo dhulkiisii u ducaynaya. aaway culimadeennii, aaway dadkii wax bartay, aaway cuqaashii, aaway dhulka maxaa loogu ducayn laayahay? dhulkaasoo dhulkeennii ma aha, kaan ku dhalannay sow ma aha, kaan biyihiisa cabnay sow ma aha, kaan sidan quruxda badan aanu u fadhina sow ma aha. dhalyaa burburiyayaana dhisa sow dhallinyarada ma aha. idaylkiin da'yar ayaa tihiin, waad dhallin yar tihiin. waxaad doonaysaan inaad idaylkiin nolol wanaagsan ku noolaataan. dalkiinniina ma rabtaan inaad ku noolaataan, waad tahriibaysaan, waxaad aadaysaan dal shisheeyaad tegaysaan. bad baad sii maraysaan iyo saxaaro, oo aad arkaysaan dhibka iyo balaayada taala aad arkaysaan. dhaxdii lagu wada dhimanayo, bacadkii iyo biyihii ay ina wada liqayaan. aaway sabirkii dalka loo sabri lahaa? aaway dulqaadkii dhulkan loo dulqaadan lahaa? aaway xooggii iyo xooggan idin haysta, xooggan maanta aad leedihiin, dhallinyaronimadan quruxdan yaa idin siiyey? war ma Orobiya America idin siiyey? soo baydhabo idinma siinin? sow baydhaba idinma siinin? sow baydhaba biyaheedii soomaydan cabbi? sow kumaydan dhalanin? sow miraheedii moordideedii iyo soomaydan cunin gallaydeedii? dhulka markuu idin dhalay, uu caanihiisii idin siiyey, uu calooshii idin buuxiyey, idin arra tiray, idin oon tiray, idin maaragtaaye gaajo tiray, oo idin jahli tiray. weliba jahliga uu idinka qaaday sanooyin, weliba free iyo bilaash aad wax ku soo barateen, qur-aankiisii iyo maadigiisiiba, diintiisii iyo maadigiisii aad barateen. maxaa loo baahnaa markaad yeelateen xoog 20 jiro markaad noqoteen? ii sheega. markay hooyadiin, dhulku waa hooyadiin, markay 20-30 sano idinla ekaysiisay maxaa loo baahnaa? ilaahay muxuu yidhi markuu waalidka ka hadlaayay? imaa yabluganna cindaka alkibar axaduhumaa aw kilaahumaa. maxaa la yidhi? falaa taqul lahumaa uf walaa tanharhumaa waqul lahumaa qawlan kariima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعلي يرود عيدا هدي اكتادو كقاران لو كان دابو قارسو موجدين والدك الله ده يا دا اكتاد هدي كقاران ادعي ورارعي عنانن هاو سبرواين هكفضضان قربك ورارعي
waxaad tidhaahdaa ilaahow sidii ay markaan yaraa ii barbaariyeen ilaahow u kalkaalo u barbaari. allah waxaa lagu cabirayay dhulkii hooyo aabbii hooyaa ka qaalisana waad ogsoon tihiin. hooyaa qaalisan 75% xooggeeni iyo xoolaheeni iyo waxbarashadeeni iyo wehelkeeni iyo wanaaggeeni ay leedahay. hooyo aabba 25 baa la siiyey, labaduba waanu jecelnahay. hooyaa laga cabiray dhulkii 75. dhulkan wuu daalay, yuu ku daalay. aaway wiilashiisii, aaway wiilashii u dhalay, aaway reer Baydhabo, aaway reer Baydhabo, aaway magaalada maxay idinkaga baahan tahay? waxay idinkaga baahan tahay xooggii iyo wanaaggii iyo dadaalkii uu idin geliyey inaad u guddaan buu u baahan yahay. soo ma ogid? yuu sugayaa oo aan idinka ahayn? yuu sugayaa? ma dal shishe ayuu sugayaa? idinkuu idin sugayaa inaad ammaankiisa dhowrtaan. idinkuu idin sugayaa, sow ma aha? idinkuu idin sugayaa jahligiisa inaad bixisaan, inaad fitantiisa saartaan, inaad ummaddiisa walaalaysaan, inaad qalbiyadiina isu xaadhaan. idinkaa idinkaga baahan yahay. waxaa la rabaa walaalka ag jooga inuu walaal u noqdo. eeg, waxaan aaday Oroba 4 sanaan kula laabanayay. markaan meeshaa tegey, hadday soomaalida dibadda joogta ay maqlaan Kenyaawi waa reer Baydhabo, hadday maqlaan wallaahi si khaas ay ii salaamayaan, in casuumi jireen. bimujarad eeg waxay igu casuumayaan inaan ahay wiil reer Baydhabo ah. eeg wanaagga lama fiirinayo qabiil. maxaa waxay kulligeen waxaan ahayn hal qabiil baanu ahayn, qalbi qof keliyaanu ahayn. waa reer Baydhaba nagu filan annagoo dhan. walaalka dhiigga xataa kaasaa nooga dhowaa. war miyaanay ahayn? soo run maaha warkaa? reer Baydhabo soo hal qabiil maaha? soo hal qalbiya maaha? soo hal reer un ma ahayn? hana deeqo reerka la yidhaahdo, hana deeqo muslim. qabiilkeenna waa maxay? maxaa waay qabiilkeenna magaciis? allah nagu nooleeyo, allah nagu dilo, allah nagu soo saaro qabiilka isagaa. walaalayaal, arrinka labaad ee aan rabo qarannimada inaan ilaashano weeyaan, inaan dhulkan ilaashano, ammaankiisii, caafimaadkiisii, nadaafadiisii, waxbarashadiisa inaan ilaashano weeyaan. waxaan rabaa marka in Baydhabo hal qabiil ayay ahayd baan idin idhi, kulligeena hal qabiil ayaanu ahayn. waxaan rabaa bal shaygiina kala geeyey maanta waxaan meelaha qaar ka maqlayaa oo run ah, idinkana aad ogsoon tihiin in qabiil loo kala degan yahay, in la isdagaalay, in dadkii uu iskala magacyo qaab daran uu isu bixiyey. waxaan rabaa maanta inaan idin xusuusiyo hal shay, ballanna inaan kala qaadano ayaan doonayaa. rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay arbacun fii ummatii min amri aljaahiliyati laa yatrukuunahunna. 4 shay ma lay maqlaa? dadka gadaale may maqlaan? 4 shay waa dhaqan ibliis oo ummadayda maanta ay ku dhaqanto. 4 dhaqan, 4 caado, 4 xaaladood oo maanta ummadayda ay ku sugan tahay. waa arrinkii jaahiliga waaye, mana ka tegayaan. iyagoo weliba eeg, iyagoo muslim ah, islaam haysta, ayay 4 caada oo caadooyinka ibliiska waagii aanu islaamka jirin ay ku dhaqmi jireen ee ummadayda maanta ku dhaqmaysaa. laa ilaaha ila allah. 2 ka mida waxa waaye alfakru fi alaxsaab waalطacnu fi alansaab. waa in qabiilka lagu faano, kan kalena kiisa in la duro waayo. war maanta ma taallaa mise ma taallo? way taallaa. rasuulku runtiisa fiiris ku salli xabiibkaaga sala allahu calayhi wasalam. in qabiil lagu faano, in la faano yaa bilaabay ii sheega. ibliis markii la yidhi aadam u sujuud calayhi salaam, aadam u sujuudha calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam. ibliis malaa'igihii oo dhan war u sujuuda. malaa'igihii waa sujuudeen, laakiin yaa diiday? ibliis baa diiday. ibliis muxuu ku diiday? muxuu yidhi? eeg, sababtii baa laynoo sheegayaa. ana khayrun minhu, anaa ka khayr badan. markaad adiga wiilkaagaa markaad dhahdid, gabadhaada markaad dhahdid, aniga anoo reer hebel ah, anoo harin anoo maalin weyne eemad
أنا يا مركاد دهديد معناه هذا محاواي وايد يقول لي إذا تاواي دقن كاس يا اسكالي أنيقو يا اسكالي إبليس أنا خير منه رسولك مركا اللي ويديي أولي يري من أكرم الناس وردتك يا أوغو كرامة بدن يا أوغو قرام داريسن يا الدنيا آخر أوغو في عن محوجري أتقاهم كود أوغو عبسد بدن وحلسكو قيمين يوامحي وعبسده إلهي كبقى أسترانته أخلاق ذو وناكسن سماها إلهي نمحوجري إن أكرمكم عند الله أتقاكم إلهي أكتي وحايدكو كرامة بدن كان إلهي أكتيكو كرامة بدن الدونك إستياكو كرامة بدن وحايدين كرامة بدن الدوني آخرو كين أوغو عبسد بدن معها كين أوغو قبيل كفي عن معها قبيل كفي عن ملها سمو جدين قبيل كفي عن والله دقل مرفلة إيو قريشتي رسولك وكذا الشيء والله إلهي أكتي واسكمت دارات هوية إي قريش ولي بغير بنو هاشم والله وايسكمت إن أكرمكم عند الله أتقاكم أكرمهم أتقاهم عبسيدة حقا واي معك اللهم كلا شرف بدنا اجي إلهي بذكر داريه رسولك صلى الله عليه وسلم أيا وحالو شيغا يا لبو كمدا صحابتيسي نين غير أنصاره iyo reer muhaajira ayaa isqabanaya maxay isku qabanayaan qabiil isku qabanayaan kii reer ansaar ayaa wuxuu ugu dhawaaqayaa qabiilkiisii wuxuu leeyahay alla tolaayay alla reerkaygiyo yaa lal ansaar ya waa sidaad dhaxdaantay ya marka inta meel aad wax ka soo daftid oo xoolo isbaar lagu soo kululay adoo gacanta dhiigaya aad soo radid reerkaagii way gali oo wado reebo waa ummadii waad kicinaysaa soo maaha yaa lalansaar ayuu yidhi kii reer muhaajir uu yaabay meesha la joogana waa madiina wuu baqaaya wuxuu leeyahay maanta waa cadcada lagu goynaa isagiina qabiilkiisii u dhawaaqay yaa lalmuhaajiriin labadii qabiil ay isu soo baxay rasuulkii loo sheegay sallallahu alayhi wasallam markaas wuxuu yiri abida'wa aljaahiliyati wa ana bayna adhhurikum da'uuha fa innaha muntina ay caadadaas dhaqanka quruxda badan wuxuu yiri ma anoo idin dhex jooga Muhammad sallallahu alayhi wasallam oo maanta idin dhex jooga miyaad u yeeranaysaan islaamkii oo idin dhex jooga kitaabkii iyo sunnada oo idin dhex yaala miyaad maanta alla tolaayay reer hebel miyaad leedihiin دعوها كتجا فإنها منتنة ووح قرمانة أوري كتجا ليري وحنا كتجا يوامعي وقبيلة دواي معها قبيل كلا صعو قبيل معها وحنا نعي لصعو قرو قبيل كشرف أيوليه استقعدها يا حبيب صلى الله عليه وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم وروحات كبرتان قبائل كينا انت ادرحم كينا كحرير نيسان هبرير ايدو ابير ابتي اووي ابي هويو المعبر الميدو سالو كلا قرنا يا حدانو قبيل جرين قبيل كينا واحد كبرتان انت كحرير نيسان رحم كينا معايلي رحم كوا جنة لغو قلا هدي لغويو رحم كل حرير واين عذاب لغو قلا حبيبك دعي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع الرحم ninka riximkiisa gooya riximkiisa xiriirin waaya waxa uu galaya cadaabka ayuu galaya janno ma galay see riximkii loo baranayaa marka riximkii qabiilkaaga waa inaad barataa markii qabiilka maxaa loo keenay in riximkaaga aad ku ogaatid in maaragtay qaraabadaada aad ku ogaatid in yaad guursanaysaa yaadan guursanaynin inaad maxramkaaga ku ogaatid diyadoo kale in la isku caawiyo intaasoo dhan waa xuquuqii waajib قبيلك الله برتوا وعباده لكن إن سحن الله استعماله أو لغو فانتمو كان كالكيس لغو درو ليسكو عيريو تاسا حارانو الله قلين وانا دقني عادي إبليس ويا صوما هل حديثان عن ربائنا قبيلك عن كقبح حي قبيالة
rasuulku wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam wuu dhaaranayaa maanta sala allahu calayhi isagoona dhaar wallaahi u baahneen ayuu u dhaaranayaa wuxuu rabaa inuu noo caddeeyo reer baydhabo khaas ahaan inuu u caddeeyo qabyaaladda qurunnimadeeda inta ay gaarsiisan tahay wuxuu leeyahay لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه والله ويكتغايان ويكهرايان ويكفغانايان دك كفانا يا أبيالكود دك قبيل كود كفانا والقبيل لغو مفانو دك قبيل كفانا والله ويدافايان اما الهي اكتي وحي كلي ذنايان حار والوالكة حار والوالكة واتغانا حار والوال سماها واتغانا حار والوالكة يكلي ذنايان الهي اكتي لا مدهن هذا الكعاد في رصد غير بيدابو لا مدهن قفك قبيلك كفانا وحلمي دي حار والوال لا مدهن ابدا maxaa yeelay xaara walwaalka waxaad garanaysaan xaarka wuxuu samaynayaa gacmuhu ku ururinayaa balooniyuu ka dhigayaa gurigiisuu rabaa inuu qaato ma xambaari kara waa inuu rogrogaa soo maaha xagguu ku rogrogayaa sankiisuu ku rogrogayaa eeg khabiisnimo iyo qurunnimo bahalkaa wuxuu ka qabo iyo dullinimo gacmihii kuma riixaya xaarka wuxuu ku riixayaa maxay sankiisuu ku riixayaa xaara walwaala la yidhaahdaa dhaqankiisa kaase xataa cabirka fiican ee rasuulka fiiri sal qofka qabyaalada iyo qabiilka balaayada ku faana anoo reer hebel dhahaya wuxuu leeyahay ilaahay agtii kaasaa ka fiican wuu ka liitaa weliba ilaahay agtii bimacnaa si kale haddaan u dhigo qabiilka ninka ku faanaya waa xaara walwaal wuxuu ku faanayana waa xaarka qurunka ee uraayo waaye ma wax lagu faanaya xaarka xaar ma wax lagu faanaa حار ما wax lagu faanaa qabiilku waa si xun loo isticmaalo waa xaar urayo weeyaan allahna wuxuu leeyahay in allaha qad adhaba cankum cibbiyata aljaahiliyati wa faqraha bilaaabaa ilaahay dad yahow reer baydhaba allah idin dhowre ilaahay wuxuu idinka tagsiiyey faankii jaahiliga ilaahay waa idinka tagsiiyey iyo kibirkii jaahiliga iyo aabbayaalkii lagu faani jiray aabbayaal waayo hore dhintay wallaahi uma baahnidin xabiibka idin dhahaya ku salliya xabiibkiina dadka wuxuu yidhi waa labo inamaa huwa mu'minun taqiyun aw faajirun shaqiy dadku waa laba un waa maxay labadaa waa mu'min taqi ah oo ilaahay yaqaana qabiil aanan ku faanaynin wuxuu ku faanayaa cabsida iyo taacada iyo cibaadada ilaahay iyo dhulkiisa ku faanaya iyo faajir shaqi ah mid inkaar qaba dhul darsaday faajir ah oo ilaahay ka furtay oo haddana maaragtay qabiil ku faanayo qabyaalada ummadda maanta dhan ku dhex jira qabiil ku kicinaya qabiil wax ku dhisaya 4.5 iyo balaayo ummadii u keenaya ummadda dhan oo ilaahay sharfay 9 bilood ku dhashaa lagu leeyahay waa nus xagee laga keenay waxaas waa dhaqan iyo caado ibliis waa dhaqan iyo caado ibliis weeyaan inamaa huwa mu'minun taqiyun aw faajirun shaqiy annaasu kulluhum banu aadam war ummadda oo dhan madowgoodii caddaankooda carabtooda iyo cajamtooda kulligood waa ilmihii aadam wa aadamu khuliqa min turaab aadanna waxaa laga sameeyey caraa laga sameeyey qiimigaa fiiriya marka qabiilka waa wax wanaagsan haddii sida fiican loo isticmaalo haddii si xun loo isticmaalo waa qabyaalad waa qurun waa xaar walwaal iyo wax ka liita soo maaha qabiil waa ka tegaynaa sow maaha qabiil waa laga tegayaa sow maaha haween kale hadlaya raggi maxaa ku dhacay waa waxa ugu badan ee qabyaalada isticmaala qabiil waa ka tegaynaa sow maaha reer baydhaba qabiil waa laga tegayaa ballan miya qabiil ma ka tegaynaa hal qabiil ma sooma nihin hal qalbiga sooma nihin hal dhula sooma lihin sow dhulkan uma noolaanayna uma dhimanayna uma shaqaynayna dhulkeenna cizigiisii sooma soo celinayna baydhabo jannaysoo dib uma soo noolaynayna nadaafadeedii caafimaadkeeda soo kama shaqaynayna wadajirkeeda soo lagama shaqaynaayo
keeda yar soo looma turaayo kooda weyn soo lama ixtiraamayo idaylkeen gacmaha soo isma qabsanayna waxaan rabaa inaan dul istaago in yar iyadana inaan dul istaaga shaygan la yidhaahda qarannimada walaalayaal qarannimada aad ogsoon tihiin weligiin qaran haddii lidin dhahaa qalbigiina ka fogeeya madaxweyne iyo ra-iisul wasaare hadalkaa iga qora qaran haddaad maqashaan madax ka fogeeya ashkhaasna qalbigiina ka saara qaranka waa dhulkeenna weeyaan qaranka waa wadajirkeenna weeyaan qaranka waa innagoo dhanoo gacmaha isqabsanna waxaa waajib diini ah in qof walba oo wax fahmaya qof walba oo caaqil ah in uu dhowro qarankiisa oo uu ilaaliyo waa waajib diini ah maxaa yeelay ninka madaxda ah madaxweynaha ama dadkan kale madaxda ah waa khaadimyaal adeegayaal ilaalinaya una adeegaya qaranka weeyaan iyagaa la rabaa inay qaranka ilaaliyaan qaranka waa idinka sida hadda u fadhidaan aad u xooggan tihiin u qurux badan tihiin qaranka lagu sheegay